السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay udin hayo gratifi qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo wacad ku maray in aanu Fahad Yaasiin heli doonin shahaadada xildhibaannimo ee uu kaga mid noqonayo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo si cad u diiday natiijada doorashada kursigii uu ku soo baxay Fahad Yaasiin halkii ayuu saldhigan doonaa dagaalka u dhaxeeya labada dhinac wararka gratifi aad ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka dalbaday madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle in uu ka caawiyo fududeynta safarka uu madaxweyne Biixi ku tagayo dalka Mareykanka isagoo u tagay dalka Djibouti sidii uu u booqan lahaa safaaradda Mareykanka ee Djibouti si uu isaga horwareejiyo caqabadaha ku horgudban booqashadiisa Mareykanka أحمد مدوبة oo kursi xildhibaannimo u diiday la taliyaha gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo Cabdi Cali Raage kursigiisana u xiray shakhsi ay saaxiibo dhow yihiin Axmed Madoobe madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo wada hadashiyay markii ugu horeysay hogaamiyaha xisbiga wadajir xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Fahad Yaasiin isagoo oo doonaya in uu heshiis kala dhex dhigo waa maxay faa'iidada Qoorqoor ugu jirta arrintaasi wararkeena ayaad ku daawan doontaan iyo Ingiriiska oo qayladaan ka muujiyay duulaanka uu Ruushku ku qaadayo wadanka Ukraine qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garooba iyagoo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka gratifi oo dhameystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ku bilaaba sida horna warkeena ardayda kugu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo muddo uu soo taxnaa dagaal siyaasadeedka kala dhaxeeya la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa qaadaya howlgalkii ugu dambeeyay ee la doonayo in lagu soo afjaro rajada Fahad Yaasiin ee ku aadan ka mid noqoshada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya walow Roble looga guuleystay wajiga koowaad ee dagaalka oo uu Fahad Yaasiin si fudud ku soo qaatay kursiga xildhibaannimo ee uu baadigo ee hub 86 oo deegaan doorashadiisu tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan haddana meesha ugu dambeysay ee laga xaqiijin doono inuu Fahad Yaasiin ku biirayo baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waa in uu helo shahaadada muujinaysa xildhibaannimadiisa oo ay bixinayaan guddiga doorashooyinka heer federaal taa oo haddii uu Fahad Yaasiin waayo ka dhigan in aanu ku biiri doonin baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo ninka hogaamiya guddiga doorashooyinka heer federaal oo lagu magacaabo Muuse Geelle ayaa iminka diyaariyay qorshihii ugu dambeeyay oo lagaga taqalusayo xildhibaannimada Fahad Yaasiin ra'iisul wasaare Roble iyo Muuse Geelle gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa isla meel dhigay in aanu Fahad Yaasiin helin marnaba shahaadada xildhibaannimo ee ay bixinayaan guddiga doorashooyinka heer federaal oo kala saari doona dhammaan xubnihii ka soo baxay dowlad goboleedyada iyada oo xubnaha uu muranku ka taagan yahay ee doorashadooda la isku qabsaday aan la siin doonin shahaadada muujinaysa in uu qofkaasi yahay xildhibaan rasmi ah oo uu si toos ah u fariisan karo hoolka baarlamaanka kana qayb gali karo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyo fadhiyada kale ee baarlamaanka waxaa iminka muuqata in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku sugayo Fahad Yaasiin halka ugu dambaysa oo ah marka uu Fahad soo doonan doono shahaadada uu doonayo inuu kaga mid noqdo baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya isaga oo ra'iisul wasaare Roble sheegay in aanu marnaba Fahad Yaasiin heli doonin shahaadada muujinaysa xildhibaannimadiisa waxaa sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya loo gudbiyay dacwad ka timid nin ka degay magaalada Muqdisho oo sheegay in loo diiday ka qaybgalka tartan doorashada kursiga hub 86 oo ergada kursiga iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulayaba uu Fahad Yaasiin boobay wuxuu ninkaasi sheegay inuu dacwad u gudbin doono guddiga xalinta khilaafaadka waana halka loo cuskan doono hakinta natiijada kursiga uu Fahad Yaasiin ku soo baxay oo guddiga xalinta khilaafaadku ay sheegi doonaan inay waxba kama jiraan tahay oo inta laga xalinayo khilaafka ka dhashay boobka doorashada kursiga 86 ee baarlamaanka Soomaaliya ee uu Fahad ku soo baxay aanu Fahad fariisan karin kana qayb gali karin fadhiyada baarlamaanka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa iyaguna si rasmi ah u diiday in ay xaqiijiyaan natiijada kursiga uu Fahad Yaasiin ku soo baxay guddigu waxa ay sheegeen inay aqoonsan yihiin 5 kamid ah mudanayaashii lagu doortay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana xubnaha ay guddigu xaqiijiyeen xildhibaan yihiin kamid ah Xiis Xasan Aadan Maxamed Deeq Xaashi Cumar
maxamed cabdulaahi xasan nuux cabdifataax qaasim maxamuud iyo cabdikariin cumar xuseen iyaga oo diiday isla markaasina sheegay inaanay aqoonsan doonin xildhibaannimada Fahad Yaasiin iyo natiijada kursiga uu ku soo baxay ee Hob 86 guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID waxay sheegeen inaanay waxba iska bedelin go'aanka ay ku hakiyeen kursiga Hob 86 sidaas darteedna aanay waxba ka jirin natiijada talaabadii lagu baalmaray sida ay sheegeen warkii hore ee ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadanaa in kursiga Hob 86 aan doorashadiisa la qaban karin tan iyo inta ay guddigu ka xaqiijinayaan hufnaanta doorashada kursigaasi iyo inay sax yihiin nabadoonnada ergada soo xulaya iyo in la maray habraaca saxda ah sida ay guddigu ku andacoodeen dagaalka ayaa la sheegay inaanu salka ku hayn hufnaanta kursiga uu Fahad Yaasiin ku soo baxay iyo habraaca loo maray balse uu yahay mid silsilad dheer oo salka ku haya khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne iyo Fahad Yaasiin la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee farmaajo Roble oo ku guul daraystay inuu Fahad ka celiyo beledweyne sidoo kalena awoodi waayay in uu wax ka bedelo natiijada doorashada kursiga uu Fahad ku soo baxay ayaa iminka doonaya in uu Fahad kaga arguto halka ugu dambeysay ee la isla imaan doono oo ah in guddiga doorashooyinka heer federaal ay bixiyaan shahaadada xildhibaannimo ee rasmiga ah taasi oo aanay heli doonin shakhsiyaad badan oo uu Fahad Yaasiin ka mid yahay sida uu ra'iisul wasaare Roble qiray hase yeeshee Fahad iyo kooxdiisa ayaa sheegay inaanay walwal weyn ka qabin in loo diidi doono shahaadada xildhibaannimo iyaga oo sheegay inay adeegsan doonaan dhinacyo kala duwan oo xitaa ay saameyn ku dhex leeyihiin guddiga doorashada ee heer federaal oo isagu laba garab u kala qaybsan isla markaana ay jiraan xubno daacad u ah farmaajo iyo Fahad Yaasiin kuwaasi oo ka caawin kara Fahad inuu si fudud ku helo shahaadada balse cidda bixinaysa shahaadada ee saxiixeeda loo baahan yahay ay tahay gudoomiyaha ugu sarreeya guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle oo ah nin ay saaxiibo dhow yihiin ra'iisul wasaare Roble iyo Saciid Cabdilaahi Deni madaxweynaha Puntland suurtagalna aysan ka ahayn inuu qaado tallaabo aanay ogeyn labadaas nin taa oo rajabeel ku ridaysa Fahad Yaasiin oo han weyn kale in uu ka mid noqdo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadibna uu u tartamo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo uu doonayo in uu Fahad ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti ayaa qasriga madaxtooyada dalka Djibouti waxa ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle kulanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa daaranaa sidii uu madaxweyne Geelle kaga qayb qaadan lahaa fududeynta safar uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi qorsheynayo in uu ku tago dalka Mareykanka bisha soo aadan horay ayay Soomaaliland u xaqiijisay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu damacsan yahay inuu u safro magaalada Washington ee dalka Mareykanka halkaas oo uu tagayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi arrimo la xiriira dadaalada ictiraaf raadinta Soomaaliland oo 30 sano wax ka badan la baadigoobayay welina aan lagu guuleysan madaxweyne Muuse ayaa sidoo kale inta uu ku sugan yahay wadanka Djibouti waxa uu booqan doonaa safaaradda dawladda Mareykanku ay ku leedahay Djibouti si uu halkaasi kaga dhamaystirto arrimaha ka dhiman ee ku horgudban socdaalkiisa dalka Mareykanka maadaama aanay dawladda Mareykanku safaarad ku lahayn gudaha Soomaaliland halka ugu dhow ee uu ka heli karo safaaradda Mareykankana ay tahay Djibouti oo Soomaaliland daris la ah maadaama uusan Muuse tagi karin dhinacyada kale sida Muqdisho iyo Addis Ababa oo aanay safaaradahoodu u fududeyn karin madaxweyne Biixi socdaalkiisa Mareykanka balse waxa muuqata in uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maciin biday safaaradda dawladda Mareykanka ee dalka Djibouti taasi oo sida la sheegay madaxweynaha ka caawin doonta sidii uu ku tagi lahaa dalka Mareykanka madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale ka dalbaday Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti inuu qayb ka qaato sidii uu Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ku tagi lahaa Mareykanka socdaalka Mareykanka ee Muuse Biixi Cabdi waxa loo arkayaa daahfurka waji cusub oo ay Soomaaliland doonayso inay kula macaamisho Washington iyadoo iminka xoogga saaraysa dalalka waaweyn ee dunida sida Mareykanka Ingiriiska iyo xitaa dhowr dal oo kale oo Soomaaliland ay cilaaqaad la samaysatay kuwaas oo ay aaminsan tahay inay si fudud ay kaga caawin karaan inay aqoonsiyasho wadamada tabarta yar ee caalamka qaarkood ay Soomaaliland kol hore ictiraaf weydiisatay balse kumaanay guuleysan waxayse markaan istustay xukuumadda Hargeysa haddii ay taageero ka hesho mid kamid ah wadamada laga haybeysto ee caalamka sida Ingiriiska ama Mareykanka in ay taasi fududeyn doonto in Soomaaliland ay noqoto wadan madax bannaan oo aan hoos joogin Soomaaliya
weli caqabado badan ayaa ku horgudban in Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland uu booqdo Mareykanka maadaama aanay jirin oo aan Mareykanka lagu tagi karin baasaboorka Somaliland waxayse wararku sheegayaan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo haysta baasaboorka dalka Djibouti sida ay horeyba mucaaradka Somaliland u qireen uu ku safri doono baasaboorka Djiboutiyaanka isaga oo sidoo kale fiisaha dalku galka weydiisan doona safaaradda Mareykanka ee dalka Djibouti oo uu si toos u booqanayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inta uu ku sugan yahay wadanka Djibouti dhammaan arrimahan oo dhan waxa sidoo kale gacan ka geysanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhowr jeer ayuu socdaal ku tagay Djibouti madaxweyne Biixi oo la sheegay in ay u noqotay halka ugu badan ee uu u safro iyadoo qaar ka mid ah shacbiga Somaliland ay isweydiiyeen sababta uu mar walba Muuse Biixi Cabdi ugu safro Djibouti isla markaana aanu madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle marna u soo booqan magaalada caasimadda u ah Somaliland ee Hargeysa Axmed Madoobe ayaa diiday inuu kursi xildhibaannimo soo siiyo la taliyaha gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo Cabdi Cali Raage iyada oo kursiga uu u tartami lahaa loo xiray shakhsi kale maadaama Cabdi Cali Raage uu ku soo hungoobay Kismaayo oo loo diiday inuu ka qayb galo tartanka kursigii uu baadigoobayay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ee SID ayaa shahaadada musharaxnimo guddoonsiiyay musharaxiinta kale ah musharax xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo musharax xildhibaan Cabdisamed Maxamed Cabdilaahi oo ku tartamaya kursiga tirsigiisu yahay hob 72 ka oo doorashadiisu ay ka dhacayso magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland musharax Xidig ayaa la siiyay kursiga isagoo meesha ka saaray la taliyaha madaxweyne Farmaajo ee dhinaca doorashooyinka Cabdi Cali Raage oo horey kursi xildhibaannimo ugu doontay magaalada Kismaayo balse ku soo guul daraystay hamnigiisa la taliyaha madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in uu ku guul daraystay qorshe madaxtooyadu wadatay oo dhowr mar fashilmay kaasi oo hub looga dajin lahaa Kismaayo si meesha looga saaro maamulka iminka ka jira Jubbaland ee Axmed Madoobe hogaaminayo kadibna la taliyaha dhinaca doorashooyinka ee Farmaajo Cabdi Cali Raage loogu boobo kursi xildhibaannimo Axmed Madoobe ayaa kursiga ku sharfay Cabdirashiid Xidig oo ay saaxiibo dhow yihiin horeyse ay mar ugu dagaalameen xukunka Jubbaland balse lagu heshiisiyay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya halkaasi oo ugu dambeyntii la iskula gartay inaanu Axmed Madoobe wax qashqashaad gelin kursiga uu Cabdirashiid Xidig ku fadhiyo oo mar kale ku soo laabtay wuxuu u xiray iminka kursiga Cabdirashiid Xidig waxaana qaab malxiis ahaan kula tartami doona nin lagu magacaabo Cabdisamed oo uu keensaday Cabdirashiid Xidig sanadkii 2019 markii dib loo dooranayay Axmed Madoobe waxaa jirtay musharaxiin hortaagnaa in Axmed Madoobe uu qaato xukunka Jubbaland waxaana kamid ahaa Cabdirashiid Xidig oo markaasi lacag ka qaatay filla Soomaaliya sida ay qireen xubno xogogaala Axmed Madoobe ayaa Cabdinaasir Seeraar iyo Sheekh Daahir Axmed Cabdilaahi oo diidanaa doorashadiisa xilal u magacaabay halka Xidig uu siiyay kursigii golaha shacabka ee uu ku fadhiyay oo uu mar kale u xiray taasi oo Axmed Madoobe ka hor wareejisay caqabadihii kaga imaanayay siyaasiyiinta miisaan kale ee xukunka Jubbaland kula loolamayay oo uu kamid yahay Cabdirashiid Xidig kaasi oo iminka mar kale kursigiisa difaacday kana mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya isagoo hore uga mid ahaa baarlamaankii 10aad ee waqtigiisu dhamaaday in uu Kismaayo kursi xildhibaannimo ka soo waayo la taliyaha dhinaca doorashooyinka ee Farmaajo Cabdi Cali Raage waxay ahayd arrin horey loo sii qiyaasayay waxay aaminsanayeen kooxda madaxweyne Farmaajo in halka ay ku aargudan doonaan ay tahay magaalada Garbaharey oo ay taalo 16 kursi oo kamid ah xubnaha deegaan ahaan ka imaanaya Jubbaland Axmed Madoobe ayaa soo saaray warquus ku ah doorashada Garbaharey kadib markii uu sheegay inaanay Jubbaland halka doorasho ku qaban doonin oo la kala dooran doono laba arrimood midkood tan koowaad ayay ku sheegeen Jubbaland in lagu qabto magaalo kale oo nabada oo ay Jubbaland gacanta ku hayso halka tan labaadna la sheegay inay noqon doonto in laga tago oo laga gudbo doorashada 16 kursi ee Garbaharey oo sida lagu galo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Soomaaliya arintaasi oo caqabad ku ah madaxweyne Farmaajo oo isku haleynayay codadka xubnaha deegaan ahaan ka imaanaya degmada xarunta u ah gobolka Gado ee Garbaharey
axmed madoobe oo ah nin muddo dheer dagaal kula soo jiray farmaajo ayaan weli ka quusan in uu farmaajo xafiiska ka raacdeeyo isagoo haddii uu taa ku guulaysto ay u noqon doonto libin siyaasadeed oo uu gaaray uuna sii xajisan doono kursigiisa madaxtinimada Jubbaland balse haddii uu farmaajo mar kale kusoo laabto xukunka Soomaaliya ugu sarreeya ee madaxweynaha waxay taa ka dhigan tahay in axmed madoobe uu wajihi doono qalqal siyaasadeed oo kalifi kara in laga taqaluso maadaama iminka uu dareemayo in uu dhibaato badan kala kulmay dagaalkii uu kula jiray filla Soomaaliya oo soo taxnaa wax ku dhow 5 sano hase yeeshee uu si la yaab leh isku difaacay hogaamiyaha Jubbaland oo noqday mid ay ka guuleysan weyday filla Soomaaliya hadiise uu farmaajo helo dhiig cusub iyo kusoo laabashadiisa xukunka oo hirgasha waxay taasi u quusgeyn doontaa hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa doonaya inuu heshiis kala dhex dhigo Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhowrkii maalin ee la soo dhaafay waxaa si hoose u socday dhexdhexaadin u garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor taasi oo lagu dhexdhexaadinayo Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wadahadalkan oo in muddo ah soo socday ayaa ugu dambeyntii habeenkii sabtiga ah ee ay bisha Febraayo ku beegnayd 12 waxaa qadka taleefanka lagu wada hadalsiiyay Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wadahadalkaasi oo ahaa mid si hoose u dhacay ayaa labada nin waxa u dhaxeeyay oo isku keenay hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo horey Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ula heshiisiyay Saadaq John iyo Kulanajiis oo uu ku eedeynayay Cabdiraxmaan inay ahaayeen raggii hormuudka u ahaa weerarkii lagu qaaday hoyga uu ka degan yahay Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka gaabsaday inuu eedeyn xoogan dusha ka saaro Fahad Yaasiin balse waxa uu eeda dusha ka saaray farmaajo kaasi oo uu ku eedeeyay inuu abaabulay weerarkii lagu qaaday gurigiisa sanadkii 2017 xilligaasi oo la dilay 5 kamid ah ilaaladii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wadahadalkaas ayaa la sheegay inuu inta badan hadlayay hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor halka uu hadalka Fahad Yaasiin ku koobnaa erayo kooban oo ku aadanaa inuusan jirin nacayb gaar ah oo uu qabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo ka cudur daartay wixii qalad ah oo uu ka tirsanayo dhankiisa wuxuu sheegay Fahad inaanu dareemayn culays u gaar ah oo Cabdiraxmaan ku hayo isaguna uu diyaar u yahay inuu fuliyo wixii uu dhankiisa uga baahan yahay Cabdiraxmaan dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhinaciisa muujiyay rabitaan uu ku doonayo in uu dib u soo celiyo xiriirkii kala dhaxeeyay Fahad Yaasiin xogta aynu helay ayaa sheegaysa in gabagabadii kulanka lagu heshiiyay in labada dhinac ay si kafool ah ugu kulmaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaasi oo ay Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku wada biiray baarlamaanka cusub ee Soomaaliya isku arki doonaan wadahadalkooda ayaa waxa uu ku aadan yahay mustaqbalka madaxtinimada Soomaaliya iyo cidda ku guuleysan karta doorashada soo socota Qoorqoor ayaa soo jeediyay in gurigiisa Muqdisho uu ka dhaco kulanka laakiin markii dambe waxa la isku waafaqay in lagu kulmo qol kamid ah qolalka hoteelka Dikali ee ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxa sidoo kale la isla gartay in aysan muhiim ahayn in Qoorqoor uu goobjoog ka ahaado kulankaasi mar haddii labada dhinac ay isku afgarteen in ay si toos u wada hadlaan sida ka muuqatay qoraalada uu Cabdiraxmaan soo dhigo baraha bulshada kuwaasi oo uu ku weeraro dowladda farmaajo gaar ahaan Fahad Yaasiin waxa dubadiiba u bilaabay inuu ka fogaado in uu si gaar ah u beegsado Fahad isagoo oo sheegay in iminka kaliya uu xooga saari doono sidii isbedel siyaasadeed uu wadanka uga dhici lahaa oo xafiiska looga raacdayn lahaa farmaajo wararka qaar ayaa sheegay in heshiiskan uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame la galay Fahad Yaasiin uu salka ku hayo arrimo dhaqaale maadaama dhaqaale xumi ay la soo diristay musharaxiinta qaar wuxuuna Fahad doonayaa in uu maal geliyo musharaxiin badan si xitaa haddii ay soo baxaan kuwa ay isaga ishayaan uu si ahaado darbi siyaasadeed oo sii jira Fahad waxa uu cabsi weyn ka qabaa haddii uu isbedel dhaco oo ay yimaadaan qaar kamid ah xubnaha mucaaradka inay taasi isaga galaafato siyaasadiisa oo lagu soo oogo dacwado badan hase yeeshee inta aanay arrimahaasi dhicin wuxuu doonayaa inay is-afgartaan musharaxiinta isaga ka aragtida duwan oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu horeeyo horey waxa uu Fahad ula heshiiyay iminkana ololahooda doorashada ka shaqeynaya xasan cali khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isna hore u soo noqday madaxweynaha galmudug iminkana kamid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya
wadahadalka Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu muujinayaa sida uu loolanka siyaasadeed ee dalka ka jira u galay meelo badan oo uu isugu keenay dhinacyo badan oo kala aragti duwan oo iminka duruufta siyaasadeedii ay isku xisbi ka dhigi karto maadaama dhan kasta uu doonayo in uu guuleysto isla markaana uusan ka maarmin isbahaysi iyo isgarabsi xoog leh oo siyaasadeed si uu guusha u hantiyo ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in Ruushku uu isku diyaarinayo dagaalkii ugu weynaa oo uu dhiig ku daato oo ka dhaca Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka Boris Johnson ayaa sheegay in qorshaha la arko ee Ruushku uu yahay in uu qorsheynayo in uu geliyo dunida gaar ahaan qaaradda Yurub dagaalkii ugu weynaa tan iyo 1945 marka loo eego baaxadda diyaar garowga Ruushka ra'iisul wasaaraha ayaa intaas raaciyay in warbixinta sirdoonku ay muujinayso in Moscow ay qorsheynayso in Ukraine ay kaga duusho dhowr jiho si ay u harayso caasimadda waddanka Ukraine hadalka Johnson ayaa waxa uu ku biirayaa mid hore uga soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay in Ruushku uu qaadi doono howlgalkii ugu weynaa oo Ukraine ku weerarayo isla markaana ay isdiyaariyeen ciidanka waddanka Mareykanku si ay u difaacaan Ukraine wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa isku dayaya inay si kasta kaga hortagaan duulaanka uu Ruushku ku yahay waddanka dariska la ah ee Ukraine oo doonayo inuu awood ku qabsado howlgalka oo muddo dheer laga baaraan degayay balse iminka la sheegay inuu Ruushku si toos ah isugu diyaariyay balse ay dhici karto in Vladimir Putin madaxweynaha Russia isagoo qiimeynaya xaaladda in uu dib kaga dhigo weerarka xilliga ay filayaan dalalka kale ee reer galbeedka si uu u noqdo mid aan lagu baraarugin oo mar qur'a laga warhelo bilowgiisa waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV